saami qaybsiga reer awdal doonayaan ma waxa weeye 13 xildhibaan ee hadda jooga loo kordhiyo mise waa in saami qaybsigu noqdo Soomaaliland wada leeyahay madax ilaamijo qaar kamid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaan aragtidooda weydiiyay sida iyagu u arkaan waxayna ku jawaabeen sidan annagu waxaan u soconnaa haddaan nahay dhalinyarta gobolada galbeedka Soomaaliland la wada leeyahay sidii Burca iyo Boorama lagu heshiiyay waxa ahayd in la helo Soomaaliland la wada leeyahay laakiin saddexdan beesha dhexe kaliya waxay ku soo koobeen in gobolada galbeedka loo kordhiyo 13 oo imikana doorashada saas lagu galo markaas waxaan u baahanay horta oo in la isla fahmaa war gobolada galbeedku maanta waxay u baahan yihiin 13 xildhibaan uma baahne waxay u baahan yihiin in Soomaaliland la wada leeyahay sidii lagu heshiiyay la helo doorashaduna waxay qabsoomeen in saamigaas oo la helo oo Soomaaliland la wada leeyahay la helo oo bay doorashada qabsoomeen waxaan u fiirsatiin deesa afar oday iyo dhowr yar oo qof horta doorashada minay ma sameeyaan oo iyagu ma codeeyaan inta ugu badan waxa codeysa ee ka dhiibata waxa weeyaan waa dhalinyarta gobolada galbeedkuna maanta way foojigan yihiin oo waxay u baahan yihiin Soomaaliland la wada leeyahay waree awdal hankoogu 13 ka xildhibaan waa ka ballaaran yahay Soomaaliland ree awdal waxay uga fadhiyaan wax la yiraahdo power sharing meel walba in la qaybsado agaasime gole deegaan baarlamaan maxaan ku dhahay meel walba oo dawladda Soomaaliland ka tirsan in la wadaago oo la qaybsado ayaanu maanta uga fadhinaa Soomaaliland anagu hadaan nahay shacabkii iyo dhalinyartii gobolka Awdal hadaan nahay waxa weeyii waanu uga fadhinaa waanu ka sugaynaa tan uga fadhinaa wata xisbi xaakimka kulmiye waxyaabii doorashooyinka uu ku galay waxa kamid ahaa waqtigii ololihiisii in dastuurka dib loo furo ballanqaadku waa mid lagaaga fadhiyo xisbi xaakim ma aha mid aanu kaaga harayno laakiin waa mid aanu kaaga fadhino way dastuur haday noqotana dhowr jeer aan waan ka hadlay dastuurku ma aha wax malaa'ig iyo rasuul qortay ma aha laakiin wax bilaadan sameeyayna wuxuu ku xidhan yahay heshiis iyo dib u eegid wardib ha loo eego مسيرك الرئيس أوضلنا ومد كقو أدنى يرتا وقت حاضر كان نبقون يلا باتن ولا جسوا قد بوقت يلو أسفل سنة كوفيد ده يوشرفان إسلاه يعني كبركة سومال لو حلا هاي وأنت بيل خميدة أما تشيل بخميدة اللي رالي قلنا اللي يقول رالي قلنا كرسي جالس وايسان وسومال لان وحلا وقرن قرن ماذا هلا إلى ريو أيان الله يعني قطب كاسنا تابنيا تاسنا مسنا والسلام عليكم. فكرة كرديبتو كلي هلجن ما أنت بالعمل معها إن صدقت طبعا كرسي إنه خد ضادنا أم بانو إنه ولا وجليا هذا هلجن كلي صدق في سنة سؤال عن ترتيبه وشري رأى والله عندنا كبر يمايا إن صدقت طبعا حل دماغه كلام يا كان رأى سوق قاريو صدق المعذري أنت مالك الشران ولا دمي خلاف كي دورشوي هذا كاسي waxayna anfacaya ma adeer hadaad idinku soo tashateen oo beelii kale Soomaaliland aad la tashaweydeen oo taadeen doorashada si hore lagu galaya adeer taasi wax idiga suurta galaysa ma anagu adaan dhalinyarta gobolada galbeedka nahay ku gali meeyna 13 xildhibaan 13 xildhibaan ma aha Soomaaliland la wada leeyahay hadaan weyno cidna ka bari meeyno inaan u daba fadhiisano masiirkayga hadii aan ka hadlo fikirkayga ama dareenkayga aan cabiro arrinka muddadan bal laga hadlayo Soomaaliland la wada leeyahay waa la waayay ma hayno waxaan leenahay 40 haday ka yaraato anagu wadaan dhalinyarta reer Boorama nahay diyaar uma nihin mana rabno kuna gali mayno kuwa hore duurka ku maqanay la sheegayna iminkaan inteeda kale dambe ka daba tagaynaa anigu hadii aan ka hadlo fikirkayga waxaynu doonaynaa oo maanta aan halkan u soo istaagnay inaanu si qurux badan u taabano oo uga hadalno Soomaaliland anagu waxaan u baahanahay Soomaaliland loo sameeyay haday tahay baarlamaanka iyo haday tahay wasiirada iyo haday tahay waxqabadka iyo haday tahay hay'adaha iyo haday tahay horumarka dhammaan inuu u sinaado gobolka Awdal Salal iyo Gabley dhamaantood inay u sinaadaan waxaanu ka rabno Soomaaliland because of Soomaaliland waxa aragtaan markasta oo ololaha doorashada la galayo waxa lagu galaa in loo sinaado wax walba oo gobolka masiirkiisa taasina noqon mayso mid marka ololaha lagu galo ee gobolka codkiisa iyo waxa weey laga helo wixii looga baahan yahay in marka dambe la yiraahdo loo toojin maayo ama anaga nidhi ama dhageysan mayno in la yiraahdo maaha waxaan shalay daawaday in dhalinyaro in garoonka kubadda ku ciyaaraysay oo 20 dhalinyaro laga soo duubay iyaga oo 13 xildhibaan diidan maanta ma aha maalintii aan diidi lahayn 14 December 2014
fikirkaa waan aaminsanaa duurkaanan ku gallay waxaana ku maqan suldaan wabar maalintaa dadkaasi way joogeen fikirkaana nalama ayna qabin maanta hadday ogaadeen laakiin way ku mahadsan yihiin waxaana leeyahay fikirkaa waad ku fiican tihiina ha ka daba tegaan wabar cidda doonaysaa laakiin maanta uma baahnin in magaalada dhexdeeda buuq laga abuuro 13 xildhibaanna waa lagu galayaa ciddii danina ma jirto fikirkaana lama qabno annagu dhallinyarada shalay ka hadlaysa meesha ma galayno maaha 13 xildhibaan inaan diidanahay waxaan doonaynaa Somaliland la wada leeyahay hadday tahay mashaariicda hadday tahay waxyaabaha kale asaasiga mowqifka dhalinyarada gobolada galbeedka masiirka ay shalay ka hadleen cid bedeli kartaa ma jirto mowqifkeega aanu qaadanay horey Soomaali u dhamaystirtay xikmad Soomaalidu waxay kuma amaadaa hal xaaraani nirig xalaal ma dhasho marka anigu waxaan leeyahay oo ugu baaqayaa dhammaan beesha dhexe haddaan ahay goboladii ama gobolkii ama wax weeyaan galbeedka ka soo jeedin war Soomaaliland waynu wada leenahay haddii aynu wada leenahayna waa inaan wax la xalaaleeyo oo si xaaraan ah in wax weeyaan loo galo ma banaana mana fiicna marka Soomaaliland haddii aynu wada leenahay war Soomaaliland maanta xalaal bay baahan tahay han xalaashano si wax weeyaan wax xalaala ay u noqoto midhalkeeguna uu noqdo wax nadiif oo wanaagsan oo meel gaadha ilaahay idankii xitaa waxa weeyaan aqoonsiga doonaysan xalaashaas ay ku xidhanta laakiin inta ay xaaraantu meesha ay taalo wax allaala wax inaga shaqeynaya ama wax allaala wax inaga soconaya ma jirto suxufi ciiska magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal